Den schnellen Truppen dicht auf folgt in langen Kolonnen das Gros der Infanterie, die immer wieder bewundernswerte Marschleistungen vollbrachte. Der Führer mit seinen Generälen im Hauptquartier. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan barnaamijkeena maanta waxaanu wax kaga soo qaadan doonaa taariikhdii hogaamiyihii kalitaliska ahaa ee atlofilter. waa kuma atlofilter? goorma ayaa u dhashay? miyaa la dilay mise lama dilin? arrimahaas oo dhan waxaynu ku falanqayn doonaa intaynu ku guda jirno barnaamijkeena. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay sabskrayb saar oo ka mid noqo saaxiibada ku xidhan kanaalkeena. atlofilter waxa uu dhashay 20 abriil 1889 waxa uuna ku dhashay waddanka loo yaqaano Usteri. waxa uu ahaa waagu yaraa baalasho naxariis badan oo maskiin ah, kabacdina isku beddelay hogaamiye aan nixin. hitler waxa uu ka baxay dugsiga sare markii uu ahaa da'da 16 waxa uuna aaday Fiina halkaasoo uu rabay inuu ka noqdo farshaxan, laakiin waxaa diiday 2 jeer macadka farshaxanka ee Fiina. waqtiga Hitler waxa uu noqday nin jecel Jarmalka inkastuusan ahayn Jarmal laakiin uu ahaa nin Australian ah. markii dagaalkii koowaad ee adduunku ka qarxay waxa uu gudbay Germany. waxa uu ku biiray kooxda Bavariga ee ciidamadii Jarmalka halkaasoo ku sugnaa muddo. kabacdi waxa uu ku biiray xisbiga qaranka shaqaalaha ee Sooshyaalistiga ah ee badanaa loo yaqaano xisbiga Nazi. waxa uu noqday hogaamiye xisbigii Naasiga ee dalka Jarmalka, islamarkaana ahaa ninkii ugu saameynta badnaa taariikhda dunida ee qarnigii 19aad. waxa uu ahaa hogaamiye Jarmalka. waxa uu noqday hogaamiyaha Jarmalka laga bilaabo sanadkii 1933 ilaa bartamihii 1945. sidoo kale Hitler waxa uu dhintay 30 abriil 1945. taariikhyahanada qaar waxay sheegaan inuu Hitler gacantiisa isku dilay kadib markii ciidankiisa lagu jabiyey caasimadda Ruushka ee Moscow. sidoo kale barnaamijkeena waxaynu wax kaga soo qaadan doonaa 7 arrimood oo aanad ka aqoon atlofilter. arrinta koowaad, jacaylkii u horreeyey ee Hitler waxa uu jeclaaday gabadh Yahuudiyada oo iskuulka wada dhigan jireen, magaceedana la odhan jiray Stefania Isaac. kama aysan ogeyn dareenkiisa, aad baa ugu xishoon jiray waqtigaasi, marna muu sheegin jacaylka uu qabo Stefania Isaac. waxa uu ahaa 16 jir markii uu qorayey gabayo badan oo iyada ka hadlaya. dad xogogaal ka ahaa oo isaga ka agdhowaa ayaa waxay sheegeen in xitaa uu isku dili gaadhay jacaylka uu qabo dartiis. arrinta labaad, Hitler waxa uu noqday qofkii u horreeyey oo u ololeeya inaan sigaarka lagu cabbin goobaha bulshadu isku timaado. dowladdii Naasiga ahayd ee ka amar qaadan jirtay atlofilter ayaa waxay joojisay in gaadiidka bulshada ka dhexeeya lagu dhex cabbo sigaar, waxaanay kordhisay canshuurta sigaarka iyadoo rabtay inay gebi ahaanba cirib tirto cabbitaanka sigaarka. arrinta saddexaad, Hitler ayaa loo sharaxay abaalmarintii Nobel Peace Prize sanadkii 1939. waxa uu sharaxay nin ka mid ahaa baarlamaanka Sweden oo laga magacaabi jiray Barnett. ninkan ayaa soo xulay ninka la dagaalama nidaamka faashistaha loo yaqaano, laakiin waxa uu ka dhigay wax ciyaara kadib markii Hitler oo ahaa faashistaha ugu weyn oo caleemo saaray abaalmarinta Nobel Peace Prize. qodobka afraad, Hitler ayaa ciidankiisa u sameeyey dumar caruusada ah kadib markii ciidankiisa ay xanuunada galmada la isu gudbiyo ka qaadeen dumarkii Faransa ay qabsadeen. Hitler waxa uu oggolaaday dumarkiisa loo sameeyo caruusado si aanay arrintani dib ugu dhicin ciidankiisa. qodobka shanaad, Hitler waxa uu aad u nabcaa ummadda Yuhuudda, taasoo intii xukuumadda dowladda Jarmalka hayay u geystay xasuuq aad u ba'an kana tirtiray gebi ahaanba qaaradda Yurub. qodobka lixaad, Hitler ma uusan aqoon sida loo wado ama loo kaxeeyo baabuurta. qodobka ugu dambeeya ee aynu barnaamijkeena kusoo khatimi doono ayaa ah Hitler waxa uu ahaa nin cuna khudaarta laakiin aan cunin hilibka. waxa uu sameeyey sharci takooraya in la waxyeeleeyo xayawaanada, iyadoo xayawaanada qaar lagu tijaabin jiray daawooyinka qaar. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. fadlan haddii aad ka heshay si wadaag asxaabtaada. waad ku maasan tahay
daawashadaada. Den schnellen Truppen dicht auf folgt in langen Kolonnen das Gros der Infanterie, die immer wieder bewundernswerte Marschleistungen vollbrachte. Der Führer mit seinen Generälen im Hauptquartier. Links vom Führer Generalmajor Jodl, rechts Generaloberst von Brauchitsch, im Vordergrund Generaloberst Keitel. Großadmiral Raeder,